mahad cabdi dubad oo ka mid ah aqoonyahanka deegaanka Soomaalida ayaa bartiisa Facebook ku daabacay qormo uu kaga faallooday filashadii laga qabay madaxweyne Mustafa 6 sano ka hor kolkii xilka madaxweynaha loo soo magacaabay iyo Puntland ama inay qodobo badan si weyn uga gaabisay xukuumadda madaxweyne Mustafa maanta ay 6 sano baarka ka jartay. aqoonyahan mahad cabdi dubad waxa uu ku bilaabay qormadiisa filasho weyn iyo Puntland maalintii shalay 22 Agoosto 2024 waxay ku beegneyd 6 sano guuradii ka soo wareegatay markii madaxweyne Mustafa uu xilka qabtay ku dhawaad 10 sano oo ay dad ku soo jireen caburin ciqaab iyo cadaadis kuwii ugu xumaa waxa shacabka deegaanka Soomaalida madaxweyne u noqday Mustafa Maxamed Umar oo ahaa aqoonyahan dalka Itoobiya wax ku bartay ka shaqeeyay fahansanaana siyaasadda dalku sida ay u shaqeyso. filashada dadkii laga qabay waxa ay mid aad u ballaaran maadaama uu ahaa shakhsi waaqici sooyaalka fahansan in badan u doodi jiray ama u hadli jiray xuquuqda bulshada deegaanka Soomaalida judhiba shaqooyin wanaagsan talaabooyin la mahadiyo iyo in ugu yaraan dadku ay xor u hadlaan ayuu ka shaqeeyay mudanuhu fagaarayaasha meelaha hadal jeedinta waxa afkiisa ka soo burqanayay hadallo ay bulshadu u riyaaqdo oo ka turjumaya baahidooda iyo aragtida guud ee bulshada. midiyadu waa maragmadoon haddii la isbarbar dhigo maamulka Mustafa iyo ugu yaraan 4 maamul ee ka horeeyay isaga waa intaan aqaanay ayuu aqoonyahanku yiri maamulkan ayaa bulshada uga fiican uga jajaban uga naxariis badan horumar ahaan isu geyn 4 maamul ee ka horeeyay iyo kan waxa ka ballaaran maamulka Mustafa marxaatina waxaad u raadsan kartaa magaalooyinka Jijiga dhagax buur qabri dahare iyo goday iyadoo ay taasi jirto haddana filashada bulshada 70 sano la soo gumeeyay waa ay ka gudaweynaanaysaa wax qabadka aan soo sheegnay. haddaba filashada bulshada inteeda wax baratay waxa ka mid ah isla xisaabtan joogto ah oo lagu sameeyo haykalka dawladda qaybihiisa kala duwan kor u qaadista maamul ee degmooyinka iyo adeeg bixintooda yareynta qabyaaladda Soomaalidu ku aafaysan tahay iyo in la helo isku duubni siyaasadeed oo ka dhana maamul goboleedyada iyo degmooyinka sharci marinta dadka soo dhibaateeyay in kastoo wax kasta uu noqon karin 100% haddana qodobadaas filashadii laga rabay aad ay uga hoos martay. qodobada kale ay xukuumaddu si guud uga gaabisana waxa ka mid ah in la helo in sharci dawli ah lagu fuliyo laguna saxo wixii khalad ah awaamirta xukuumadda ee ah in laga fogaado musuqa qabyaaladii ee exda oo la fuliyo in la joojiyo sadbursiga siyaasadeed ee ka jira degmooyinka magaalooyinka gobolada iyo deegaanka qaab dhismeedkiisa kala duwan sinaanshiya cadaaladdanka mashaariicda ah iyo mas'uuliyiin ku sifaysan sharci waxqabad iyo kamidhalinta hadafyada xafiisyada. sababta arrimaha sare ilaa hadda ay u meelmar laayihiin waa in aanay jirin dabagal toos ah oo maalinle ah sidoo kale ugu yaraan qiimeynta rubuc ah ee warbaahinta dawladdu soo tabiso waxa marar badan dhagahayaga ku soo dhaca dhawaaqyo aan fiicnayn oo la xidhiidha mas'uuliyiin ku sifoobay adeeg xumo musuq iyo jeclaysi taas oo aan ilaa hadda talaabooyin cad laga qaadin oo iska ah jugjug meeshaada joog waxaana taas marxaati ka ah warbixinta xafiiska xisbiga BB oo soo saaray ee ku saabsanayd adeeg xumada ka jirta haykalada dawladda qayb ka mid ah. haddaba xukuumaddan waxay soo yaallaa filashada bulshada oo aad u weyn iyo fulin la'aan awaamirta dawladda oo isgarab socda ayuu qormadiisa ku soo koobay aqoonyahan mahad cabdi dubad oo ka mid ah aqoonyahanka deegaanka Soomaalida adigana maxay kula tahay